الله فرماجو وزارة كحيينك دمان مدحدا كليه مسؤولينta kale ee ka soo qayb galay salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaanka baadi waxa farxad weyn oo inaan ka soo qayb galay maanta shirkan laga hadlayo amniga Soomaaliya marka hore waan u mahad celinayaa cid kasta oo Soomaaliya uga qayb gashay ama kala qayb qaadatay xaaladaha amniga ee ku jirta iyo inay maanta soo gaadho marxaladda ay marayso naf iyo maalba ha ku bixiyeen waxaan laakiin rabaa inaan daba dhigo inaan shirar badan qabanno marar badan baan ka hadalay arrinta Soomaaliya iyo amniga waxay u baahan tahay shirarku inay yaraadaan fulitaanka iyo waxa la ballan qaadan in la fuliyo ay implementationka u bato taas aad muhiim ah marka waxaan taas ku boorin lahaa madaxda saaxiibadan iyo kulligood in arrintaas la soo dhaweeyo oo fulitaanka la sameeyo amniga Soomaaliya see wax looga qaban karaa laba xaaladood wax laga qaban karaa mar waa in la dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka wadanka ku haya ay ka shaqeynayaan mujtamaca dhexdiisa iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karayo qodobka labaadna wuxuu noqon karaa in la sameeyo hawlgal midaysan oo AMISOM ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dawlad goboleedyadu hal mar la wada qaado taasoo fududeyn karaysa in la wiiqo ka bacdina Soomaalidu ay ku filaan karto inay hawshaas wax ka qabato oo ay si daba gasho taadaradeed labada fikirka iyo hawlgal midaysan hadaan la helin maalin walba waan ka doodaynaa halkeedana joogayna arrimaha laga hadla maalmahan oo AMISOM iyo dhimitaankeeda iyo in waqtiga AMISOM laga bilaabo sanadkan haddaan ku jiro wax laga dhimayo waxay la tahay tusaale waxa inoo filan ciidan meel ka baxaya wuxuu u baahan yahay meesha uu ka baxayo sidii uu ugu yimid si ka xun inuu kaga tago waxa uu kaga tagay waxay noqonaysaa inuu sidii si ka fiican uga tago taadaradeed macnuhu wuxuu noqonayaa in loo diyaar garoobo oo la sameeyo diyaar garoob marka laga baxayo sababta looga baxayo iyo cid ay ku wareejinayaan in la helo hal soo dedejiyo inay ka baxdo AMISOM hal dedejiyo in ciidan Soomaaliyeed la wareego laakiin asbaabtu maxay noqonaysaa AMISOM iyo international partnerka ama donorska wax bixinaya waxa looga baahan yahay in la soo geliyo ciidan ka badan kuwa hadda jooga oo AMISOM oo loo sameeyo road map ama khariidad ay ku hawlgeli karaan muddo xadidan muddadaasna hal dagaal oo isku xiriirsan wadanka lagu wada qaadi karayo taasina ay keeni karayso inay fududaato in cadawga la burburiyo inta gudaheedana la sameeyo in la abuuro ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo cadawga la dagaalamayo ka awood roon ee ula noqonin jabhad looga tagay waxaan isleeyahay haddii arrintaa la fuliyo waa suurtagal AMISOM iyo ciidankeedu inuu baxo iyo in la dhimo sababta AMISOM iyaguba waxaa haysata dhibaato maalin walba way Soomaaliya dad baa kaga dhinta wadankoodii way ka soo maqan yihiin wiilashoodii iyo reerahoodii waa kala maqan iyaga laftirkoodu inay wadankoodii ku noqdaan way rabaan laakiin hal la sameeyo jawigii lagu diyaarin lahaa shirarka badanna ha lagu bedelo hawlgallo iyo la xisaabtan iyo road map la isku ogyahay taasina ha sababto marka hawlgal dhab ah waxaa aad u fiican inta badan markii la isugu yimaado shirarka wax fiican oo la isu bogaadiyaa la isu sheegaa laakiin talaabada ka dhalata shirkiisa maalintaan isugu nimaadno maanta oo kale waxaan akhriyaynaa taa marka waxay la tahay aan ficil bedelo waanan idinka mahad celinayaa kulligiin bayna arrinta Soomaaliya wada taagantiin waxaan kaloo rabaa arrinta fikirka ee hadda ka hadlayay in la abuuro la dagaalanka fikirkan guracan oo aan maanta isleeyahay shacabka Soomaaliyeed aad ugu waxaysan yahay gaar ahaan dhacdadii 14 Oktoobar dhacday waxay dadka taabsiisay reer Muqdisho waxayna shalay ku fakareen markii hore caadi bay laahayd laakiin hadda dareenkaasi wuu jiraa taa waxay u baahan tahay marka arrinta fikirkaas in si dhaba loo gado laga shaqeeyo la istismaariyo laga midho dhaliyo guul bayna keenaysaa waxaan rabaa Jubbaland markii laga hadlayo iyo dagaalka shabaabka waa meesha maanta dhibaatada ugu badan ee sababtoo caasimadii dawlad goboleedkaasi way maqan tahay gobol dhan baa gacanta shabaabka ku jira istaraatiijiyada uu leeyahay ama duurka ha noqoto
ama xuduudaha uu dowladaha la leeyahay ha noqoto ama bay-adu waxay abuuri karta environmentiga ha noqotee ayaa waxay sababaysaa in maanta hoggaanka ugu sarreeya al-shabaab kulligii uu gobolkaas joogo waxaan u baahannahay markaa culayska in la dareemo maska haddaan madaxa laga dilin wax badan ma qabsoomayaan waxaa laga yaabaa gobolka banaadir ama caasimadda in dhaqaalaha inta badan iyo siyaalo badan sababtoo populationka ku badanaya markii la yidhaahdo ay wax badan ka soo geli karo laakiin meesha wax laga fuliyo ama wax lagu soo fuliyo waa halkaas taa waxaan codsan lahayn markaa dowladda federaalka iyo amisom iyo kulli in culayskaas lanala qaata lana dareemo gobolkaas haddaan buundooyinkaa la qabanin oon iyaga dhexdooda la kala xirxilinna dhibaatadu way sii soconaysaa annana aanu diyaaru nahay markaa annagoo la shaqaynayna dowladda federaalka iyo amisom iyo cid walba inaan samayno dabagallo siday u dagaalamayaan ula dagaalano dhallinyaraduna ay diyaaru tahay waxaan rajaynayaa haddii arrimaha tallaabooyinkaa la qaado arrinta amniga soomaaliya in wax badan iska beddelayaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oon soo dhoweeyo oon u hambaliyeeyo shirka maalmahan ka socday jabuuti ee heshiiska uu ku dhex maray galmudug iyo ahlusunna waljamaaca waxaa garan karaya khilaafka noocaas ciddii soo martay madaxweyne xaaf waan u hambalyeynayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo dowladda soomaaliyeed iyo ahlusunnaba dowladda jabuuti ee martigelisay iyo igad kulligood waan uga mahad celinayaa waxaana rajaynayaa madaxweyne xaaf isagaa waxaa laga sugayaa inuu la yimaado tanaasul dheeraada dadkiisa inuu isku wato nin walba on boord ka dhigo saacaddan wixii ka dambeeyana waa isaga qofka laga sugayo inuu nin walba gurigiisa ugu yeedho u tago arrintaasi waxay u noqonaysaa waa guul soomaaliya usoo hoyatay deganaanshaha iyo xasiloonidana wax badan bay ka soo kordhinaysaa cid kasta iyo khilaaf kasta oo soomaaliya dhexdeeda ka jirana waxaan aad u rajaynayaa soomaalidu ma aha sida dadka qaarkii ama dowladaha qaarkood ama qowmiyadaha qaarkood oo laga yaabo marka la wada hadashiinayo taagtaagnidoodu inay badan tahay wax yaroo hoose oo habeenkii aan ku heshiin karaan inta badan isku qabanaayo aan soomaaliya iyo heshiiskeennana hoos u dhaqanno habeenkiina shaqayno dhaqankeennina yaynaan ka tegin aad baan idinku mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu